أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. dhirtu waxa weeyaan wasiilada kaliya ee bini'aadanku uu kaga faa'iideysto tamarta cadeedu ay soo deyso. waayo geedku waxa uu macdanaha kala duwan ee uu baahan yahay ka qaataa dhulka, biyahana dhulka ayuu ka soo saartaa, kadibna bixitaan ayuu sameeyaa. marka uu bixitaan sameeyo wixii midhihii uu soo saaray ayaa waxa ku nool bini'aadanka iyo waxa dhulka dushiisa ku nool oo dhan. si haddaba nolosha bini'aadanku ay u sii jirto, ilaahay wuxuu u sameeyey geedkaasi isaga ayaa cuntada samaysta, midhahana uu soo saaraa. sidaa darteed ba waxaynu odhanaynaa dhulka guud ahaan marka la eego qaybta beriga ku uuman ee makhluuqaadkii midhahaasi geedku soo saaray cunaan. xayawaankii midhahaasi cunayey ama geedkaasi cunayey xayawaan kalaa kusii daba nool oo iyagana sii cuna. kuwa xayawaanka sii cunaya laftoodu haddii kuwani ayna noolaan lahayn ma shaqaynayaan. kuwanina noloshoodu waxay ku xidhan tahay halkan geedkan wixii ka soo baxa ama dhirtan ayay noloshooda ku xidhan tahay. innaga bini'aadan ahaan oo kale midhihii waxaynu cunno oo dhan ilaa caanahaynu cabano ilaa xoolaheennu waxa ay noloshooda ku xidhan tahay geedkaasi. sidaa darteed waxaynu oran karnaa jiritaanka noloshu ay ku jirto dhulka dushiisa ilaahay xikmad ahaan wuxuu u talagalay geedkaasi inuu abuuro oo laga faa'iideysto. dhinaca labaad hawooyinkan aynu ku aragno atmosferka aynu ku arkano oxygentan aynu qaadanno iyo kaarboonkan aynu sii daynano, geedka laftiisa ayuu mastarka ugu horeeya kasoo baxa uu yahay. markaynu soo noqono aayadda qur-aankii halka ay taabanayso geedku ahmiyadda marka uu leeyahay, ilaahay wuxuu leeyahay alladii jacala lakum min ashajari alakhdari naaran faidaa antum minhu tuuqiduun. maadaama aynu leeyahay haddaba caleenta geedku uu leeyahay waxay haysaa tamartii guud ahaan kasoo baxday cadeedda ayay haysaa. inta uu qoyan yahay oo kaliya maaha, ilaa marka uu qalalo oo kale waa la oran karaa. taana waxaa laga dhaliyaa markaasi dab ayaa la oran jiray oo tafaasiirtii hore ay oran jirtay oo laba geed oo saxraha ka baxa oo kale la oran jiray oo Soomaali ahaan oo kale inaga madagta oo kale ayaa la oran jiray ayaa dabka laga dhaliyaa la oran jiray. laakiinse imika aqoonta science iyo technology ay horumartay ay soo gaadhay markaasi fasirkii aayadda in ay macluumaadkii in badan oo kamid ay ku darto ayaa waxaynu oran karnaa ilaa xataa shidaalka aynu imika isticmaalno iyo gaasta aynu isticmaalno iyo batroolka aynu isticmaalno ayaa waxa ay asalkooda hore ka yimaadeen baa la yidhaahdaa dhir hore oo baaba'day oo dabeedna baaba'day dhulka hoose ku aasantay, deposit fara badan ay koray, oxygentii ay ka xidhantay. halkaas ayaa tamartii ay ka timaadaa marka ay hawadu ka xidhanto ay oxygentu ka xidhanto dhuxul-dhagax oo kale noqota. sidoo kale xayawaanaadka cuna dhirta oo kale oo waqtiyadii hore ee imika la oran karo oo kale ilaa 1 milyan oo sano horteed oo kale xayawaanadii cuni jiray oo dhirtaasi faraha badnayd ee dhulka ilaahay ku abuuray cuni jiray ayaa waxa la yiraahdaa markay cunaan ee iyaguna ay dhintaan ay baaba'aan waxay noqotaa markaasi shidaal noocyadiisa kala duwan ee sidaynu imika aynu adduun ahaan u naqaano. taa lafteeda ayaa markaasi ilaahay quraanka waxa uu ku leeyahay alladii jacala lakum min ash-shajari al-akhdari naaran fa idaa antum minhu tuuqiduun.